waxaa hosbitaalka magaalada Fiiq ee xarunta maamulka gobolka Erar lagu soo gabagabeeyay adeegii daaweynta iyo qaliinka indhaha bilaashka oo muddo toddobaadaba ka socday hosbitaalkaasi oo markaasi adeegani ay ka faa'iideysteen bulsho gaadhaysa 867 qof oo dhanka aragga wax ka qabtay isla markaana ka kala timaaday degmada Fiiq iyo nawaaxigeeda. haddaba Bashiir Macalin Cabdi waxa uu ka mid yahay dadka ka faa'iideystay adeegani daaweynta iyo qaliinka indhaha waxaana uu indhaha u la'aa muddo gaadhaysa 15 sano. haddaba waxaa noo suurta gashay inaanu Bashiir inta uu soo gaadhin goobta adeegani daaweynta uu ka socdo inaanu ku booqno gurigiisa amaba xaafadda uu deganaa oo markaasi u jirta magaalada Fiiq 50 kilomitir. haddaba Bashiir Macalin Cabdi waxa uu leeyahay 2 xaas 5 caruur ah ayuu waxa uu ku dhalay indhala'aan isagoona markaasi caruurtiisa ku kala saara codka oo keliya. haddaba Bashiir Macalin Cabdi nolosha indhala'aanta uu ku noolaa waa sidee waa kan asagoo ka warbixinaya hawlaha gurigayga iga qabsaday dee markii nin waliba hawshiisa abaaro oo xoogiisa abaartay koorta iyo nin waliba kaaryoonihiisa iyo gaarigiisa iyo geel iyo ari waxa iska eryado ani barbaa la iga dhaqaaqa shanqadha iga soo bixi ma waraaba ma dadba ma dumarba ma ciyaalba qaylay noqotay waxaygii war waa kuma war waa ayo ummatul maxamed halkaan wax garta waaye wadakaale waxaan rabaa waxa qabsatay dee wax kaaydigeeyo markaa kolka dadku ilaa hawlaha la kala galay inaan kabtan ku tukado waxa uga jeedsado shanqadaha waxaan dareemi jiray tumar u eg xaalada nooca oo dhibaato badan baa isoo qabsaday. indhuhu waxa ay ka mid yihiin xubnaha bilaadanka kuwa ugu qaalisan laakiin markay dhibaato ay ka hasiibto waxaad noqonaysaa guud ahaanba mid ka raja dhiga adduunyada madow iyo ciriiri nololeedna gala. si kastaba ha ahaatee Bashiir Macalin Cabdi markii uu daaweyn iyo qalin bilaasha uu kala kulmay kooxda dhakhaatiirta wareega ah ee xafiiska caafimaadka ee dowladdeegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ayaa waxa uu mar kale uu dib u haleelay inuu aragiisa uu dib u helo. haddaba daaweyn kadib markii uu dib ugu laabtay Bashiir reerkiisii ayaa waxa la yaab ku noqotay Bashiir oo indhaqaba oo cidna hageenin markii arkeen ehelkiisa iyo waliba dadkii uu la noolaa. waxaana soo buux dhaafiyay ardayga gurigiisa dadyow aad u tiro badan oo markaasi u soo daawasho tagay Bashiir. haddaba bulshadii qaarkeed oo wareysi la yeelanay waxa ay yiraahdeen wax lama filaan oo ahaani waxaan la yaabay buu ahaa waxaan meesha ka dhowraynin buu ahaa ruux inta yaruun intuu ka amaanade waanka dad hore oo indhaha intay dawladda intuu meel tagay oo herer iyo dir dhabiya kolba meeliyo jigjigiya uu tagay oo kharaj iyo hawle iyo maal iyo isagoo in badan baqnaa iyo ina badan oo sariir joogay wax yararka waan arkay. laakiin intuu 3 habeen ka maqnaa habeenkii afraad uu soo galay aroortii uu sidii nin waligi yaalihii baan dhabeelin oo kala xaafadiisii iyo reerkii isagoo dirdirin yimid waa waxaan hadda ka horto arag ayaan kama badnayn intuu naga maqnaa wakaa isagoo indhihii wax u yihiin yuu yimid wakaa faraha macallinku imtixaamay kow laba ka yiri haleena arintaasu ilaahayna way ku fududahay annagana maskaxdanada way ka faynaatay ku yar baa yidhi anoo jiifa abtiyow aboy Bashiir oo socdo nina hagayn baan arkaa dharkayga ee gabadh baan ka maana soo dhaqaadan xaafadda dadkii sururug yidhi ku ururay baan arkay alleela arintaasu ilaahay way ku dhib yartahay annaga maskaxdanadase way ka weynaatay. mar kale Bashiir oo wareysi aanu la yeelanay ayaa waxa uu nooga warbixiyay waaga cusub ee u bariyay iyo waliba sida uu ugu faraxsan yahay inuu aragiisa mar kale dib u helo. الله تنكيني يتقنصكن ويالي دولة النبي يدتك يجي وحاوي وكم هنقيا إيانا وحان له عز الله صاروا عالم كي الدولة ديان كي يدتك الله السيء الدريالين إيا السيء الدويين إيا السيدي ويهين تي وحاوي عدوك بعضها لك قدر قضب واكاه تكالي عنه وحوي ما شاء الله كفتك وقتها ولا تلوي بيلك أحسن تهاي تلوي كفتها بيلك كعبار لها دوي بيلك أحسن تهاي بقى سما قرن دي وحوي شقدي فرصتها السعودية اللي ما كان دلها. si kastaba ha ahaatee waxaa marka ka dambaysa isi taraya adeegyada horumarineed ee dhanka caafimaadka ee bulshada deegaanka la gaarsiinayo qaliinkan iyo daaweynta indhaha bilaashkana waxa uu qayb ka yahay adeegyada dhanka caafimaadka ee bulshada deegaanka sida farxadda leh ay u soo dhaweeyeen waxaana adeegani inta uu bilowday ka faa'iideysatay boqolaal shacabka deegaanka oo la ilxumaa dhibaatooyin ka haysatay dhanka aragga.